waxay u soo bandhigeen lacag gaaraysa malaayiin balse uu ka diiday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دنيا channel. مقعي محمد إبراهيم. برنامجنا حمسو قادم دونا أساسها شبكة فيسبوك مارك زوكربيرغ. هذا سيدايو كو أساسي فيسبوك. هذا برنامجنا ما توحين كسو قادم دونا فكرتي كودا لسي إنو أساسه فيسبوك. هذا انت هنا بلاوين برنامج كان فلان لايك صار مغال كان سيدو كلام سبسكرايب صار وقنبال الكفرة محاد سند. مارك wuxuu ahaa arday dhiganaya jaamacadda Harvard badanaa ay ardayda wax ka dhigan jireen ay ku xaman jireen inuu yahay arday xirxiran oo bulshaabi ahayn balse waxa dhacday in ay kala galaan fasaxyo ardaydii isna wuxuu noqday keligii haddaba wuxuu ku fakiray inuu sameeyo page oo ardaydu ay isku arkaan halkaas ay ka wada sheekaystaan balse page-kii wuxuu isku bedelay in ay maalinba maalin ka dambayso ay ku soo kordhaan dad wuxuu ku fakiray inuu sameeyo application markii ay sanadii 2005 isagoo 24 sano jir ah markii uu sameeyay kadib ay dadkii ay ogaadeen sidoo kale waxa uu ogaaday shirkado u tartami jiray applicationada waxaana u timaaday shirkad waxayna ka codsatay inuu iska soo wareejiyo application iyagoo soo bandhigay lacag malaayiin gaaraysa waxay ka ahayd codsi balse uu ka diiday codsigaasi Mark dadkii wala yaabeen waxayna weydiiyeen sababta uu qasaariyay lacagtaas inta leeg isagoo dhalinyaro ah in badan uu amsanaadaba ugu dambeyn wuxuu ugu jawaabay application-kan uma dhigmo lacag malaayiin ah haddaba wuxuu sii watay shaqadiisa isagoo aan qofna dhigto dhigay ugu dambeyn wuxuu soo waday heerkan ayuu soo gaarsiiyay shabakadda halkaas oo ay dad badan isku barteen haddaba sanadkii 2020 saddexdii bilood ugu waxa la xaqiijiyay in ay isticmaalaan 2.6 bilyan oo qof ugu dambeyn barnaamijkan intaas ayuu ku eegyahay waana ku mahadsantahay daawashada daawatay muuqaalkan